qolo kale waxaa noo timi sidii ku dhow oo ayadana ku dhahaysa kaliya hal dhinac fariin hal dhinac ka socota ah fariin hal dhinac ka socota dalkan lagu madhisi karo mana anfacayso saas daraadeed waxaan rabnaa in la doodo oo annaga xisbi wada jir waxaan rabnaa in waxa lagu dhisayo Soomaaliya ay dood noqoto waxa ku nagu jira aan soo bandhigno nagala doodaan wixii qashin nala daadiyo wixii wanaaga noo ku taageero wixii noo ku kordhi karo noo ku kordhiyo wixii nala ka dhimi karo nala ka dhimo dadku aqli leeyihiin garaad leeyihiin aragti leeyihiin marka rag guddoonka kamida yaa waxay noo soo jeediyeen garoonka Cabdullaahi Ciise waxay dhaheen dadku kula hadla marka annaga waxaan nidhi groupkaas ma nihin annaga waxaan nahay groupka dadka inay la doodaan rabaa groupka hal dhinac fariintooda tahay annaga ma nihin waa ka cudur daaran waxaan rabnaa mawduucan oo gudo weyn inaan dhex galno kaalkacyana ay u tahay center sida gudoomiye Kamaal uu sheegay runtii Soomaaliya waxay soo martay tijaabooyin badan ay ku doonayso inay dawladnimo ku dhisato tijaabadii ugu horeysay 9 ay jirtay waa nidaamkii dimuqraadiga ahaa oo dalku xisbiye ay ka jireen dadku ay isdooranayeen dalku baarlamaan uu lahaa lagu soo galo tartan iyo baratan kaalkacay dabcan meelaha asalku ah oo siyaasaddaas loolankeeda kamid ahayd waa la socotiin labada dhinacba marka nidaamkaas jiray shaqaalaha rayidku waxay ahayn kuwa ka madax bannaan siyaasadda ciidanku wuxuu ahaa siyaasadda mid ka madax bannaan oonan amar toos uga qaadanaynin madaxda oon ka wada dhahaynin hebel soo qabta ama hebel soo xira ama hebel siyaasaddu iga soo horjeedahay ka qabta aysan ahayn waxaa jirto qiso caan ah oo buugaagta qoraalada lagu wariyay oo ah nin ka tirsan safaaradda Soomaaliya Addis Ababa markaas joogay yaa dukumiintiyo wuxuu u liigareeyay ama u dhiibay oo sirta dawladda ah joornaal madax bannaan oo dalka la dhihi jiray oo xilligaas soo baxa joornaalkaas hadda cadadihii soo bixi jiray xilligaas oo dhan nin dhuxul la yiraahdo editorka reer Hargeysa aad u qiimo badnaa dawladdu critic ku ahaa dadka dawladda aad u dhaliilo ahaa ilaa hadda jaamacadaha adduunka iyo meelaha makaatibta waa yaalaan nuquladii joornaalkaas marka ninkii waa la qabsaday Cabdisaaq Xaji Xuseen oo maana wasaaraha marka wuxuu isku dayay ninkii in la qabto oo ninkii xilkii laga qaado shaqada laga raacdeeyo maxkamadda maamulka uu tagay maxkamadda maamulaha jirta dalka oo abiil loo qaato wuxuu yiri xukuumadda waxay u raacisay wax la yiraahdo unfair dismissal si oon cadaalad ahayn xilka laga qaaday maxkamaddii waxay xukuntay ra'iisul wasaaraha inuu qaldan yahay ninkaasna uu saxsan yahay shaqadiisa loo soo celiyo macnaheedu waxaan ka wadaa way ka madax bannaanayeen hay-adaha maamulka kuwa siyaasadda way ka madax bannaanayeen hannaankaas annagoo ku jirna ciidankii ay yimid waxay afgambiyeen nidaamkii dimuqraadiga ah waxayna ku sheegeen inuu ahaa nidaamkii musuqmaasuqa intana kalena way naga raarideen nidaam xun oo musuqmaasuqa inuu ahaa dabcan musuqmaasuq waa jiray curdun oo ahaa nidaamku laakiin nidaam hadduu hana qaado sida Afrikada qaarkeed maanta gaari kara ayuu ahaa oo dawladdaas dariskeena oo Kenya ay u horeyso xukunkii uu la wareegay asagoo ah dhahaya qaran xoog badan aan dhisaya waxaan dhisayaa dawlad adag waxaan dhisayaa horumar waxaan keenayaa talo Soomaali ay ku baraarto sharaf iyo karaamo adduunka ay ugu soo ceshato laakiin halkuu ku dhamaaday ma rabo inaan taariikhdiisa galo waa la soconaa meeshuu ku dhamaaday wuxuu ku dhamaaday dagaal ahliya dadkii oo isdilaya dawladdii oo dadkii u haystaan inay tahay mid shakhsi ah annaga keliyana maahna wadamo badan oo noocaas hadda adduunka way ka jiraan oo hadda kuwa hadda 90kii meeshaan joogna annaga jooga hadda oo sidii u duminaya dawladdii hadda qofka Liibiyaanka markaa warsato wuxuu ku leeyahay Qadaafi iyaan annaga la dirisanayn dawladdii iyo Qadaafi iska dhex galay ay kala qowaayeen marka waa isla dumiyeen hadda warsato Siiriyaanka Asad iyo wiilkiisa iyo reer Asad waxa iska dhex galay dawladnimadii way iska dumiyeen saas oo kale Yemen saas oo kale maaragtay dawlado badan oo noocaas hadda waxa jir jidkaas ku socda oo la kala garawaayay qofkii wax xukumayay iyo dawladnimadii la kala garawaayay marka annaga waxaan rabnaa systemka marka dimuqraadiga oo asaga ka horeeyay militariga halaksaas ma ahayn aadan cadde iyo systemka waa la kala garanay Cabdirashiid iyo dawladana labay kala haayeen oo way kala baxsanaayeen marka tijaabadii labaadna taas ay ahayd sidoo burburka u dhacay tijaabadii saddexaad waa midii carta laga keenay oo lagu soo dhisay dawladdii ku meel gaarka ahayd oo 4.5 ku dhisneed oo nidaamka federaalka ah ku qotantay hanaankii dimuqraadiga in dib loo soo celiyeen
ku dhisneed ayuu ahaa ilaa hadda waxay jirtaa dhowr iyo 10 sano 20kii ku dhowdahay si tartiibay ku socotaa way hana qaadi laadahay laakiin sidaas tartiibka ah oo maalinba wax lagu darayo yaa waxay ka habboon tahay in xoog qof wax ku qaato oo yiraahdo aniga qarankii ah anaa qaran fiican oo xoog inay dhisaya anaa dawladnimo adag inay haya anigaas karaamadii iyo sharaftii Soomaaliya soo celinaya ee xukunka aniga gacanta la geliyo taas Soomaalida way ku soo ajarantay way ku soo qaldantay mar dambana uma socoto xagee la aaday marka waxa la aaday nidaamkan gunka soo dhiska ah oo sida kale hadii loo dhigo la yiraahdo federaalka la yiraahdo oo hadda ka dhisan galmudug oo imaan doona sida galmudug iyo dhismaheeda yahay iyo sida inay tahay loo dhiso oo hadda ka dhisan Puntland oo ka dhisan gobolada intooda kale deegaanada kale Jubbaland iyo South West ay kamid yihiin marka laga tago Somaliland inta kale maamul goboleedyo ayaa ka dhisan oo gunka soo dhis ku socda oo hadii maanta caasimadda ay dhibaato gaarto loo baxsan karo oo maanta halkaan joognaa kaalkacyo on servicekii iyo wixii loo baahnaa qofka muwaadinka ee reer galmudug oo ku haysta halkaan laakiin awal saas ma aha jirin waa la socotaan wax yar oo service u baahato waxay ahayd in caasimadda aado hadda shahaadada secondary u baahan tahay anigu shahaadada dugsiga u baahday waxay inaan xamar tago hadii aan baasaboor u baahnaa xamar tago hadii aan wax kasta oo dawladda ku xiriir hadaan u baahdo waxay ahayd inaan tago magaalada Muqdisho oo u safro oo xagga u doonto laakiin hadda dadkii inay noloshoodii ayaga dhisanayaan ayaa muuqda maxaa marka dhigi karnaa caqabadaha la hortaagan maxay yihiin oo hadda inay hanaqaadkan nidaamkii saddexaad ama jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya arta ka soo bilaabatay ilaa Eldoret soo martay ilaa Djibouti qoladii aniga aan qaybta ka ahaa soo martay ilaa gudaha la isku doortay ilaa nidaamka federaalka hadda aan joogno maxaa caqabado ku ah maxayse fursado ah labadaas arabna inaan yara kor istaagno ka bacdina arinta galmudug aan ku soo gabagabayno waxa caqabado ah qabiilka ama qabyaalada qof soo u yaqaan dadka qaar waa soo midba dadka qaarna way kala saaraan dabcan qabiilka waa dadku waxay ka soo jeedaan iyo isirkooda iyo farcooda wadaad baa nin doodaya maalin dhageysto wadaadka marka wuxuu soo daliishaday aayadii quraanka ah wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri in qabaaisha iyo waxa lagu talagalay in la isku aqoonsado waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'il ta'aarafu nin dood adag oo wuxuu ku yiri in la isku ogaado Soomaaliya ha aydiyan wataa u dhahay maxaan uga baahanahay tacaaruf waaba la yaqaana sheekhu wuxuu yiri wax kala keen waxa isbarasho yihiin aydiyan wataa u dhahay aniga wajaabka igu jira oo lagu garanayo lagu aqoonsanayo fingerprint hadda jiro dhahay fara DNA yaalo marka maxaa looga baahan yahay dhahay in la isku aqoonsado marka doodaasna waa jirtaa ogaada laakiin hadii aan ka sii gudubno dhaano qabiilkii qabyaalada aan kala saarno anigu waxaan ku miisaaliyaa qabiilka sidii maaragtay biyaha iyo doonto kale si isku yihiin doonta ama bada ku socoto ama webiga ku socoto biilaan ma socon karto Soomaa waa inay biyo u kor socotaa hadday biyaha soo galaan way qalibayaan Soomaa waa dhibaato ku tahay ma kamana maaranto hadday soo galaan way duminaysaa marka hadda qabiilka nidaamkeena dawliga ah in lagu dhiso waa lagu qasban yahay sababtoo ah xal kale hadda oo la haayo ma jiro saasayna ahayd qoladii tiri xalan raadinaynaa xaq ma raadinayno wax ku dhistay haddii aan taas ka soo qaadno laakiin haddii uu doonta soo galo biyaha uu qarqinayaa marka in la kala ilaaliyo u baahan tahay oo lagu kor socdo kaliya lagana ilaaliyo inuu biyaha doonta oo soo dhex galo marka qabiilka marka muxuu caqabad ku yahay wuxuu caqabad ku yahay dadka siyaasiyiinta ah ee siyaasadda ku loolamaya ayaa u adeegsanaya qabiilka inuu yahay aaliyad ama qaab ay ku manabalood gareeyaan ama ay maskaxda uga qabsadaan dadka shacabka ah ay waxba u soo celinaynin adduunka waa jiri jirtay marka taariikh ahaan laakiin dadku way ka gudbaan ummadaha dhan adduunka waa soo wada mareen Yuruba waxa la yiraahdaa ummadda si fiican uga dhex baxda qabiilka oo ka tagtay gabigiisba laakiin qolo aan soo marin ma jirto hadda Shiinaha wali qabiil waa qabaan laakiin sidan oo kale ma Carabahan Afrikaanka حتى هندية كاستي سيدان way qabaan laakiin sidan oo kale ma gaarsiisana annaga waan ka guuri laanahay si tartiibay uga guureen ummadaha kale laakiin dadka completely ka guuray gabi ahaanba waa Yurubiyaanka dadkana waxay dhahan waxa ka raray diinta Masiixiga yaa ka rartay laakiin annaga waa ka guuri laanahay sidii aadan iyo xawo loo abuuran baalkii ag yurarna oo waa dhaqaaqi laanahay
qabiilkiya waxaa loo yahay maxbuus wax lagu helayana ma laha markaa fiirisa marka taariikhda carabta weliba kuwadii jaahiliga ahaa waatay leeyihiin axyaanan calaa bakrin min akhiina in lam najid ilaa akhaana hay dhaheen mararka qaarkood dagaalka reer bakar oo walaalaheenoo nagala dhexeeya wax kaloo la dagaalna haddaan weyno ayagaan isdagaalayna hay dhaheen marka waa saasba marka wuxuu yidhi inamaa ana min qusayata inqawad ahawiiti u dhahay aniga reer qusayaan ka tirsanahay hadday baadiyowdo waa la baadiyooba waa meesha annagaan ka dhahno fiqi tolkiiska ma janno tago marka nimankaas waxay ahaayeen niman silac ku nool oo qabiilka aaminsan markuu faana nin caraba wuxuu yidhi idaa balaqa alfitaamu sabiyu mina alfitaamu takhiru lahu jabaabir saajidiin oo dhahay haddii annaga wiilkeenna yarkaa markii naaska laga gooyo kuwa jabaabirada oo qabiilada kale oo weyna u sujuudo dhahay markay arkaan wanashrabu maa in waradnaa safwan wayashrabu kayrunaa kadran wardiina o dhahay ceelka markaan cabaynane biyaha miidahan cabnaa dhahay iyadoo la taabanin marka annaga ka cabnay waxa calowga ahay wadaanta qastay kuwa kala cabaanoyin marka dee waa jaahiliya wax loo yiri waaye qofka qabiilka la weyn wuxuu ku qabo nacfiyana male marka qabiilka gudbaayey oo ummadahan kale ay hadda ka soo hormareen dadka ayagoo isku kasti ah ama isku qabiil ah ay masaalix ka wada hadlaan warniyo maxaa dano ii haysaa oo aniga u soo kordhinaysaa ma ii haysaa horumar caafimaad waxbarasho nolosheeda wax ka bedelaya xoogaa isla xisaabtana isku qabiilana ruu waay ani adiga laakiin iyo qabiilkii wax ku dar taas weli annaga ma gaarin see uga baxayna waa meesha fursadaha aan ugu imaan doono dula yiraahdo